dayacayo tuura ayama arugdaata yuuqaba aday baday yuuqanka iyo taane layguka dulyooke wanaagana mayse yuuqaba aday baday yuuqanka iyo taane layguka dulyooke wanaagana mayse أحمد مومي سيد gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo hargeysa kula hadlayay warfidiyeenka ayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siiraayo ku dhaliilay inuu ka hadli kari waayay qabsoomidda doorashooyinka taasi oo muran xoogan oo siyaasadeed ka dhex dhalisay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ilaa imika madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraayo kama hadlin muddada doorashada qabanayo taasina waa nasiib daro ku hoganaysa dawladnimadeena iyo maxay Soomaaliland inuu madaxweynuhu hadli waayo doorashada dadka uu cayimi waayo waa arrin aad iyo aad wax inoo yeelaysa marka waxaan isleeyahay xukuumadani rayaale maalintii wareejinayay si aad ogeydeen dalka oo dal nabada iyo dad midaysan dawlad xuduudeedu dhan yahay buu wareejiyay maanta waxaad arkaysaa xaaladda dalku halkay marayso marka waxaan isleeyahay wax badan waxyeeladeeda maanta badan ilaa imikana madaxweynaha hadal lagama hayo xilliguu doorashada qabanayay ma sheegin annagu waddanka arkayo ilaa imika maanta madashii iyo xisbiyada mucaaradka waxaan nolaa shir waxaan intaanu ka hadlaynaa waxa weeye sidaynu dalkan maxaynu ka yeelaynaa gudoomiye Said oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay inaan waxba laga qabanin gobolka Awdal muddadii 5 sano ahayd ee xukuumadda hadda talada haysa ay talinaysay laakiin wax kale oo la taaban karo oo aynu leenahay xukuumaddu siraydeyntii talada haysay bay gaar Awdal wax ugu qabatay runtii ma jirto Batri Koosar Maxamuud telefishinka caalamiga Star dawladdu way ku guuleysatay inay biyo soo geliso degmada Wajaale dhakhtar baa laga sameeyay horumar fara badan baa ka socda horumarkaana inaynu ka wada qayb galno aad iyo aad bay u habboon tahay waxa jira had iyo jeer dad horumarkaasi garan maayo indhahooga inay arkaynin qofka mucaaradka waa loo baahan yahay mucaaradku inuu dawladdu meeshay dhaliisha ku leedahay sheego oo tilmaamo yiraahdo halkaasi bay dawladdu oo halkaas anagu wax ka qaban doonaa yiraahdaan laakiin imika waayadan dambe waxa jira rag mucaarada oo aytama mucaaradnimadana aytan maaha mucaaradnimada marka qofku haduuna kala garan waayo xisbiga mucaaradkii waajibkiisa iyo hadduu kala garan waayo waa nasiib daro nin dhan oo madaxweynihii caayaya waa jaahilnima u geynaysa waayo hadduu wax kala garanayo shakhsi lama caayo xigeenka wadani oo in badan halkan edeb darro maanta intuu TV-ga soo hortaagay ka caytamay waxay u geynaysaa maan leeyahay waa edeb darro waayo shakhsi lama caayo waxa u geynayaa waa jaahilnimo waxa weeye nin madax isku sheegaya oo haddana intuu soo taaga mikrofoonka ay waxa weeye waxaan leeyahay ka waantoobo alxamdulilah asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam marka hore waxaan jecelahay inaan hambaliyada ciidda la qaybsado shucuubta islaamka guud ahaan gaar ahaana shacabka Soomaaliland guud iyo dibadba iyo inta maanta aanu ku wada ciidina masjidkan waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay haynaga aqbalo acmaasheeni iyo cibaadadii aynu soo gudanay bisheedana aynu gaarsiin khayr iyo wanaag waxaynu soo marnay bil Ramadaan runtii waxay ahayd bishani Ramadaan ama aynu galay Ramadaanadii aynu mari jirtay ugu kululayd oo aad moodaysay roob la'aan iyo abaar inay jirto
naxariistuna ay noogu yareed guud ahaan marka ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naxariista inoo furo naxariista ilaahay waxyaabaha lagu helo waxaa ka mid ah xukunka caadilka iyo daacadnimada marka waxaan jecelahay inaad u ducaysaan xukaamteena kuwa jooga iyo kuwa iman doonaba in ilaahay ka dhigo xukaam xaqa ku sugma oo laga helo cadaalad iyo daacadnimo markaynu xukaam leenahay ma aha uun dee ninka madaxweynaha ah ama ku-xigeenka u ah xukaamta waxaa ku jira kuwa gobollada jooga aqoon-yahan ha noqdo sheekh ha noqdo caaqil suldaan iyo kuwa lamid ah waa iyaguba hoggaanka ummadda ayay qayb ka yihiin marka daacadnimada laga rabaa waxa weeye keliya beylahda shacabka ee ay u hayaan oo ah dan guud inay ugu shaqeeyaan inaan loo adeegsan si shakhsiya iyo danaysi taasaa ugu horreysa oo laga dhowrsanaado beylahda shacabka in lagu danaysto marka ilaahay hayna waafajiyo xaqa dalkeennu wuu dihin yahay dhalinyaro fara badan baa inoo soo baxaysa waxaad arkaysaan inay badaha isu gurayaan ama dhibaatooyin kale ka imanayo rajo la-aan baa u muuqata ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaynu rajada usoo celino waxa weeye waddanku wuu inagu filan yahay haddii aynu tacab samayno daacadnimona la nimaado intii dadkan mas-uulka u ahee gobollada joogtaana ay eegaan inay u turaan ubadkooda iyo mustaqbalka ubadkooda waxaa xaqiiqo noqonaya inay la xisaabtami karayaan dowladda dhexe iyo inta ay dirteen inay u galaan golayaal laakiin haddii iyagu eegi waayaan waxay noqonaysaa dee in dantii ay meesha ku lunto marka ilaahay ha ku sugo waynuu ducaynaynaa dhammaanteenba in ilaahay xaqa inagu sugo ummadi sharci kama maaranto sharcigu waa wax qure lagu kala socdo guud ahaan dalkeennii sharci la-aan baynu isugu soo baxaynaa guurtidii waxay noqotay golo dhaxal ah oo la kala dhaxlo oo aan la dooran oo maanta dulmi lagu fadhiyo 23 sannadood golihii wakiilada la mid oo muddo dhaafay 2 jeer kii xukuumaddana waxaa haray 7 cisho ilaa 10 cisho in ku siman marka 10 cisho wixii ka dambeeyay xaalkeenu soo noqon bay ilaahay baa garanaya waxa dhici karta wax kasta oo aynaan ku talagelin inay yimaadaan oo ay haddii ummaddu sharci la'aan isugu soo baxdo dee sharci la'aan dadka waxay baddo waa la garanayaa marka inta maanta talada haysa maanta ee halka gaarsiisay shacabka waxaan leenahay ilaahay caqligeedu ku soo celiyo ku sugma in dalkan ku soo dabaashaan sharciyad haddii inta la waayo aan waxaan leeyahay wax kasta iman kara hal iskaga tala galo in loo baahan karo in mar kale shacabka Soomaaliland isugu yimaadaan madal la mid ah 22 sano ka hor la isugu yimid ee Sheekh Cali Jawhar ilaahay ayna waafajiyo khayrka ilaahay ciidana wanaagsan ugu gaarsiiyo talada dalkana ilaahay ha u sugo inta maanta ku soo inta waqtigu inaga dhicin haddii kale dee shacabkii dhalinyaro iyo waayeel buu xaleeyahay loo diyaar garoobo sidaynu badbaadin lahayn dimuqraadiyaddii aynu dhiganay iyo sidii aynu qarannimadeena u adkeyn lahayn haddii la yiraahdo asalaamu calaykum wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Somaliland Maxamed Jaamac Abgaal ayaa waxa uu jawaab waafiyay hadal ka soo yeeray Cabdirashiid Xasan Mataan maalintii shalay ahayd oo ku aadan dhaliilo isbarkan oo u jeediyay xukuumadda Somaliland Axmed Diiri Ciisre ayaa warkaasi noo haya wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Somaliland Maxamed Jaamac Abgaal ayaa maanta shir jiraa'id ku qabtay magaalada Boorame ee caasimadda labaad ee Somaliland wasiirka ayaa ugu horeyntii waxa uu hanbaliyay dadweynaha reer Somaliland meel kasta oo ay dunida islaamka ay ka joogaan sidoo kalena waxa uu hambalyadan u diray dhammaanba ummadda reer Somaliland wasiir Maxamed Jaamac Abgaal ayaa sidoo kale waxa uu jawaab waafiya ka bixiyay hadal ka soo yeeray musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee UCID aqoonyahan Cabdirashiid Xasan Mataan oo maalintii shalay ahayd masjidka jaamaca ee magaalada Boorama kaga hadlay khudbadii uu ka jeedinayay in xukuumadda waqtigeedu hadda dhamaaday ay 7 cisho u hadhan tahay محمد جامع عبقال وهذا الكاسر اللي قلين كبحنا وحا وشيغي الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلي إن شاء الله مالكي عيدي وينيد الصفر ساجدكي أنه كنت كلي فرصتها لي الحمد لله إله بامهده inaanu anagu caafimaad qabna 30 maalmood soo dhamaysanay iyo 20 maalmood soo dhamaysanay soonkii soo gudanay waajibkii Ilaahayna faray salaadii aynu isugu nimi inaan ku tukano ciid al-fitri soofur alxamdulillah aanu la cibaadaysanay
boqolaal ummado islaamo aan kula tukanay miskiin jaamaca boorama muftigii weynaaye diintu gondol dhigatay sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar runtii markuu arkay dhowr nin oo dowladda iyo macaarid iyo kala socdo masaajidka ku tukanaya dardaaran wanaagsan la siiyey ujeeddadiisuna waxayd inaanaan dadka maalinta cibaadada ah maalintaa weyn ee loo soo doontay jaa'isadii 30 maalmood ee soo socnay in lagu qaybiyo halka ilaahay umadiisa ugu qaybiyo si qarsoon oo ilaahay uu og yahay qabcaha kor loo wada taagayay alla barigii ducadii isfaristii diinta maalinta wanaagsan in la ishambaliyo ubixiyo falaawirkii caruurta waa ku siiyay waxaan ummadda intiina la cibaadaystay la tukatay muftigii weynaasha cabdilaahi sheekh cali jawhar imaamkii نتيجيني الله أكبر آمين طبعا كده بتاعيني يا أنت وماذا كلا دقيش ده بكره اللي كلني سب وحده ولا اللي كلني يا أن الرياضي لما فلان تعرفتي كصويا علي مرشحي مدحوين كحيان تحس بقعد أن إنكستور إنه كنا قرني هاي وراكي هاي ساحبكي هاي طلني يسعى دين الإسلام لما دون غير حيسي حتى أنا ربتي أنا جا أقدم مع القادمة وحكر اللي كلني يا أمد ما دام أنا هكا كنت شوقي سعودان ومدحوينها قرب ويوصل الماضي إلى أمضي كل الصعيدو مالي تاسيب أيام دوشة فوق هذا اللي يعطانا وحنا كرر اللي كرني عريضي لما فلان كايرتي ألقى عبادتي ومدي عبادتي لقوا ذكر العدو كسر بحضي يعني وراكي عبد الرشيد يعني كنت كرر اللي كرني وإذا كان كرني كنت وايسقي هاي سوانك محمد هذا الشيء الله يحرسته أحمد ولي يدي آدم حسن الثاني يهب لي دق بدنا قرني يدي ورا الله يا الله لا شيء يعني كنت كمان في اليوم حيانا عسكري على السيارات فقارة رجل سؤال كي مين اللي سوى حق هوي بديهين حتى هكا كل الذين يحكون هذا فقارة كلام الدنيا إمي كانوا حبان كل مرة بتوعلني أنت لا عباد سياسي وقتها إلى هاي سكاي يعني أنت خليل اللي جوه المقشي إمامتي وينايو الشيخ وينا عباد هالكا الشيخ عبد الله شعال تاريو قدومي قبل كي مير كي مسؤولين تكلا كان جوتي ينتي مقشي بدماتود وحكر اللي كلني رياض نوعاسها عباد اللي وحيل قال لي مناع أم تصام موضوع خرمتي إسنا كمان نافكريني لكن ويرجع عادي بان كلني والما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته